Akram Sweeties waxaad ka helaysaa macmiilkooda sareyso keegu wuxuu qayb weyn ka yahay farxadda munaasabadaada waxaan meesha ka marnay noocyada kala duwan cuntooyinka fudud fast food kuwaas oo haddii aad mar dhamiso aad u xiisi doonteen dalba hadda oo nagala soo xariir April 63 Akram Sweeties السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعيقة أدنى لرادة وحنا كنا ولاي سويدن Transfer Galaxy waxay iga caawisay inay si kan xiriir fiican aniga ee asxaabtay iyo waalidkayga Transfer Galaxy waxaan u doortay sida uu u sahlan yahay iyo sida uu u dhaqso badan yahay maqal ismahan waa ogahay in la isgaar aniguna ogeyn haddana maraba inaan ogaado yaa qaldan yaa saxan balse waxa kaliya aan ogahay waxay tahay in ismahan waxa ay rabto gurigan ka socdo ismahan waxa rabto ma gurigan ka socdo waxa kasta sida ay ugula muuqdaan caawa dabka dhacay adiga shiday waxaan rabtay inaad ogaato ilaa heerka la isla gaarayo shalay waxa u baahnaa qof guriga hawshiisa ka caawiyo waa heshay haddana sidaa rabto ma noqon maadaama sidaa rabto uu noqon waayena waxaad doorbiday inaad samayso sida daran waxaas waxba kama jiraan hooyo faraxsan ismahaanaa keeni karto shala dumaashida ayay ahayd maantana sida waxaa tihiin laba qof oo isku faaca caawo Easter iyo hooyana inay madaxa la galaan adaa ka dambeeyay waxaa wanaagsanayd xaaska walaalkaa inaad ka xishooto caqli iyo qorsheyn u baahan tahay reerka in lagu wado ama lagu kala diro labadaba waa leedahay adiga waxaan rajaynayaa wax xiga intaadan falin ka hor inaad ka fiirsan doontid habeen wanaagsan ina ducaale waanadaada anada aabbaa ka fiicnayd السلام عليكم هيا عليكم السلام ايه رسيته الحمد لله في عون حماتك سو كما في عون لا ما هدي سو subax wanaagsan way wanaagsan Satahay. الحمد لله maanta waa natiijada baaritaanka habboon ee reerka kale isbitaalka naadina خير ورجينا هو حكى فينا لي انا soo raacdo booska abu ducaalna aanu istaagto تعالى الله ونحرست لكن أنا ما أقان قف عاسي وحنا توسع إذا كان ما تسكت هرتان waaba iska dhamaad hooyo inaan khayr u rajaynaa fiican حرسيو اه استر ما لهدش ولا هذا احول بين خير كل ما يعني irtay waxa walba khayr ku dhamaanaya جاوبت كل سؤال اقول انا هاي waa jawaab macquul ah معنى ونكسن جمال دعالة عبد الله جامع اوكي فريستا waxaan xaqiijinayaa inaad joogtaan dhakhtarka natiijada ma sheegi doono صاحب سلو صاحب هذا هلكم بشيني سمسا تجاوي يا سكر ما يلا على وقت سكر يجري يمكن حرصة يا مات يو وحير صحنا وإيمانا
ewer afar u dambaysa markaa. waxaan baaritaan ku sameynay hidde-sidayaasha dhinaca koowaad cabdulla jaamac geedi dhanka kale habboon si loo xaqiijiyo in ay isdhaleen natiijadii ka soo baxday baaristii hidde-sidaha cabdulla jaamac geedi waxay caddaynaysaa in uunsa dhalin habboon sidee ay dhihi kartaa tilmaamihii oo dhan ayay leedahay aniga waxaan ahay hooyo been leema sheegi karo ka fiirsa arrintaas doctore arrintan waa arrin culeyskeeda loo miisaankeeda loo seriosa marka arrin ka fiirsasho u baahan waayo naga raalli noqo annaga xaq waxaan u leenahay wixii soo baxo natiijada ka soo baxda meesha inaan sheegno waanan ku kalsoonnahay 100% annagaana damaanadeeda qaadi doono adeer baaritaanka DNA oo meesha ugu dambaysa lagu kala bixi karo marka khalaas aan isku duceyno kaliya shakiga badnaa wuu soo dhamaaday adinkana waxaad ii rajaynayaan inaad gabadhiin heli doontaan annagana waa idiin soo duceynayna insha allah ukaadi oo fahamkan oo adigana habboon istijaaba wax walbay hagaagayaan habboon maxaa la murugaysan tahay natiijada sidaa rabnin haddii noqoysa micnaheeda maaha inaan wax walba weyne waa dadaaleyna ilaa wax walba ka heleyno habboon gabadhayda waxaa lagaga baahan yahay dadaalkaaga inaad laba laabtid xitaa haddii aad kuftid waa inaad kacdaa maxaa yeelay intaanu qofka kula garab taagan oo ku jecel marka marnaba ha niyad jabin قارن أبا أرنتا ما بلو كو مجوكتو نيد خير شيك وصح هذا الكحرس xabiibta habboon familkaaga waa heleynaa sawir bay ahaato adigana waxaa lagaaga baahan yahay inaad dadaasho anagoo dhanna garabkaagaa nahay horaa waxaa loo dheh dadaalaa wuu gaaraa waxaan idinkaaba nin haystaa reer kale maxaan ku raadiyaa ayaga laftirkooda waa u baahannahay haddaan helana waxaan noqonaynaa qoys weyn waa kuu duceeyey baariyaa tahay reerkao dhan waa ku jeceliye ilaahayna waxaan kaaga baryaa dadkao dhan inay saas kugu jeclaadaan yaa abo allah aqbal yaa waaye ani waa hooyo Esther soo gal ساتي هويو الحمد لله fiicana هو يقرأ النقو حالي واحد بدنا قدمي عاجز dareemaye saaka xataa waa jirnaa ma todon batagay maxaa kugu dhacay ma khani wallah saaka quraacda xataa qolka ugu jiri way urkeeda lalabo afka wax wasaari way abshir maxaa dhacay adiga ma fahmi kartid waad yartahay waxaan u maleynayaa inaan walacday ma khani wallah xataa deer warari ra'ayhayo waa lagu yaqaanaa waayo waxaan kaa rabaa qolkaaga intaad gasho inaad iska nasato waxaad u baahatan oo lagu keenayaa maya hooy caadi waa hoosh waa qaban karaa maanta maya wax hoolo aad qaban karta ma jirto qolkaada gale waa ii nasane wax allaale waxa u baahatan fadhigaagaa lagugu keenaa ma fahantaa hool hadda laguguma talagelin orod hooy ii nasa haddaa aragta ismahaantina iigu wac naya ismahaan
خير الله كبير. hee hooy hooyadaa kugu cusub hee hooy dhegeysiire gabadhan istara way xanuunsan tahay maanta wixii ka dambeeyana guriga hooshiisa adigaa ka mas-uula yaa xanuun ah tartiib waada maxaa la qaynay waa beenteeda waa waxay xanuunsantahay male istar waa taas ana iga xoog badan tahay ay dhegeyso adiga keliga ayaan kuu sheegayaa gabadhan istara waa walac hadhowdinayaan ku maqlin adigoo meelaha la taagtaagan istar waa walac walaca markuu cusub yahay lama sheego afkaaga ka adkaawan ku dhah hooy been waaye ma xanuunsan istar hawsha guriga inay ka dhudhuumatala rabtaa walac wax ka jira ma lahan iga aamus ceeb u dhimi kuma dheheen waxaa walac ka og tahayna ma lahana aniga ha iga daba hadlin gurigaan hooshiisa adaa ka mas-uulaha ku dhah orod hawshaada qabsaan ku dhah gabadhaasna ha kaa nasato Hey. ka waran shaqada wax qaldan ma jiro Mayma wax kasta waa okay. maasha allah Ka waran habboon reerkii ma isla hadeen may waa ku xumaa wallaahi anagoo dhan waxaa aaminsanaa in habboon reerkeeda heshay jawaabta DNA-ga wax kasta caddeeyey hadda maxaa la sameynaa marka maxaa la sameyn lahaa raadintaa sii soconayso reerkan say isku heleen abu ducaale ilaah naxariisto habboon meesha tusay ayadana marka waxay bilowday inay reerkeeda raadiso marka waxay heshay reer oo magac iyo wax kasta oo isku raacsan marka laakiin DNA-ga wax kasta caddeeyey xaafaddu waa xaafadee marka towfiiq waaye kasku wacan absa tahay waa fiicana kaale la casho cashada ugu badantahay mayma waa soo casheeye shaqadii wax qabadama ka siyaasad wallaahi meel fiican wax ii marayaan hadda shaqadooyinka dhan waa qaban karaa khibradda waa muhiim laakiin waxaa ka sii muhiimsan inay isfahamtaan dadka nin wax loo sheegi karin aad noqotid waa dadaalaa wallaahi dadka aan isla shaqeyno isfahansannahay hadda maanta waa keligaa shaqada qabanaya keligaa shaqeynaya waa dad kula shaqeynaya kiil shaqeynaya maanta wuxuu raacay gabadh oo soo korsaday 20 sano ka hor reerkii is heleen ma isbitaalka iska heleen may isbitaalka wuxuu tagay natiijada si uu soo ogaaday inay is dhaleen in kale kadibna maxaa dhacay kadib waxaa la soo ogaaday inay is lahayn gabadhii reerka abo waxaa raba inaan kuu sheego idi aamin xalaa u sheegay arrintan gabadha kaala hadlooyo maajida aamina soo xasuusay dhimashadii farax laakiin waxaa raba inaan ogaado laakiin maxaa ogaanaysaa eejida aamino inay ilowda geedada ifrax waxay ku qaadatay muddo dheer aniguna sabab u ahaa adiguna waxaad doonaysaa maalin kasta inaad soo xasuusid aab xaq uma limaad sababta walaashay u dhimatay inaan ogaado ilaa hadda ma ogeed sababta walaashay u dhimatay
warjooji islaamatiidna لا إله إلا الله wargabadha anaa ka tag wargabadhaada ifraax 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 wargabadhaada warjooji gabadha anaa ka tagay isla markii meesha hore ma ka imaanay miya ani meelan ku go'doonsanaa marka hooyadaa ii sheegtay markiiba waa aaday meeshana dagaal xunaa ka socday rasaasna way ka dhacaysa anoon meeshiiba gaarin ayaa waxaa iga soo gaaray dhaawacaas caloosh iga yaal anaaba xaalad xun gala isbitaal laga qaaday sidee ku ogaateen inay dhimatay meesha ma la geli karin horta muddo bilna dagaalaa ka socday waxaa naloo sheegay maalintaas dad badan oo carruur ku jiraan inay meesha ku dhinteen iyadana kuwaasay ka mid ahayd waa baafinay warkeedana maana helin هاي يور أو حبون saaki ilaa hadda qolkay ku jirtaa ومحي قلبك يا ثاني waxaa la yidhi ma jirto mushkilad aysan xali karin hurdo dheer ورد دير كدبنا مشكلة مش كبح حلوين ميع mushkiladihii hore kuwo ka duwan ammaanayo midda horena caadi noqonay aad maxaa sameysaa markaa murugsantaa waa labistaa magaaladeeda iska galaa qof walba si gaar isku xaliya والله waa soo fiirna wada aragta wax ka bedeli karo nin jecel haa dhug ma laha ma u sheegin midaas okay أحمد واي soo gal axmed fariiso واسطة تدري مسابون مادام ريرك سوني جويس nim soo neejibinin DNA soo neejibi أيوه هو إني كل الآن way fiicnaan lahayd taas inay iska sii socoto waan ka xumaa habboon aniga og xaaladda ku jirta haddana waxaan jeclaystaa caawa labadeena banaan ka soo cashayn meelaha caawina banaanka aadi kara axmed sorry anigaa rabo inaan kaa soo qosalsiiyo mana aqaan inay suurtagalta inaan kaa qosin karin kale haddii aad iga diidan warigii ma ogaana inaan kaa qosalsiin karin kale marka iga diidan waan ku baryaa waan hubo inaan kaa qosalsiin karo haye soo diyaarno okay fadhigaan kugu sugaa haye maxay ku dhahden يا أقبش intee aadeenane أنا سألقوا هاي arrinta habboon al murugeysanahay وانقر habboon wax uroon hibin uroon ما جرت مشكلة إيه سحلين كرين هو ده laba goor burday way ay heysaanin يا ويلي كرم أرد اسك سيح مرك
Regina. Hey. haboon ka waran lacala haddii reerkaaga seshaan iyagoo 20 qof ah oo aabbaha iska soo jiro lumitaankaaga si aan u soo kabsado darteed 20 cunigaa u dhalay maxaa samayn lahayd mii dhahaysaas soo dhawaada aad u mahadsantahay qorshaha wuxuu ahaa cashada kadib in la keeno laakiin waa la soo dhaqsaday waaw iga waran reerkaaga markii laga reebo hibe iyo maamada dabcan dhankayga aabbahay anigoo yar u dhintay waana qiyaasi kartaa sababtaan u raadinayn laakiin hooyo waa hooyo ma aqaan hooyo la-aan sidan ku noolaan lahaa waa jaceylkay koowaad waana saaxiib keliya dunida aan ku leeyahay muddo dheer haysmurjin adigaa weydiiyey marka hore okay ada dhankaaga intaa ka xistid reerkaaga caruurkaa weyn ma jirta ma sheegi kari okay yaraantaada maxaa ka xistaa abducaali ka hor haa maalintii aan xaafadeena ka soo lumayay oo abducaali isoo kaxaynayay bis asima kaaga sheekeeyey marka mise adaa soo xista asagaa iga sheekeeyey kadib aan soo xasuustay dharkaa weyta markaas ma xusan kartaa maya aabba ma ii sheegin sababtaa asagaaba xasuusan waayey sidaan u fahmo adiga markii wax lagaaga sheekeeye lee soo xustaa oday cabdil reerkiisa waxba kama xusta maya xitaa markii maamada ay habku siisay oo ay tilmaamaaga bixisay isku oyseen odaygaa si fiican u fiirisay xasuustaada waxba iskama bedel maya waxba miskay bedelin ma laga yaabaa aabbaha inuu wasiir yahay oo haddaad tv ka aragtid aa garan kartid mise laga yaabaa aabbaha inuu hadda meelaha marayo oo hadda kuu soo dhawaada aad dareemaysid aabbahaas aad ka hadlaysid aabba ducaalo waaye jacayl waalidoo dhammaystiran ogsiy sooma aniga aabbahay dagaaladii ku dhintay ayadoo laleeyahaa bixin dagaal ha aadin xaasii cunug yar ayaa barbaarin iyo garab kaa rab xilligan adag ayuu qorigiisa qaatay wuxuuna aaday dagaal aan micno weyn markaas lahayn ugu dambeyntiina waa laga soo warramay wuxuu ka tegay hooyada oo keligeed ah oo aan haysanin wax garab ah markaas laakiin hooyo ayaa waxay ii noqotay hooyo aabbo waana dareemi karaa aabbahaaga qiimaha uu kuugu fadhiyo sida caadigaa markii lagu arkaayo waxaa lagu malaynaa mashalaaye sida caadiga way adagtahay inaad seshaan qofaas ku sheekatihiin dunidan laakiin haboon reerkaaga waa helaysaa waan hubaa niyaddaada khayr u sheeg intaan noolahayn waan ku garab taagana waddo kaleba ma ii furna mahadsanid
sida mayay aruuryaad miira la soo kacay meel mahigan jilbaha dhigay dhirtu ay magoosho manka iyo caleentii iskumay raxsoome muda 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 dhulka muud ka soo baxay muranu dhex yaalo anaa ka macaaniyo waxaanay masciideed hadalaysu mari karin masha barwaaqa muuqooda habboone marmar baan ku moodaa amase kugu mataalaaye inta lagaa سفنان ما فكري وقتها